bilayska Somaliland ayaa caawa si khasaba ku joojiyay munaasabad qaar ka mid ah haweenka magaalada Hargeysa ay ku qabanayeen mid ka mid ah hoteelada magaalada Hargeysa kaas oo ugu mahadnaqayeen xildhibaan Axmed Guruje oo ka tirsan aqalka golaha wakiilada Somaliland kana soo baxay xisbiga kulmiye balse uu codeeyay shirgudoonka mucaaradka maalintii codaynta qaar ka mid ah xildhibaanada aqalka golaha wakiilada Somaliland oo munaasabada gudaheeda ku jiray markii ciidamadu ay ka dareerinayeen dadka ayaa waxay sheegeen in iyaga qudhooda waa xildhibaanada loo geystay jirdil xildhibaanadan oo caawa warbaahinta la hadlay ayaa arintaas waxay ku tilmaameen fal sharciga ka baxsan isla markaasna waxay sheegeen in golaha wakiilada Somaliland uu la xisaabtamayo kuwa bixiyay amarka lagu joojiyay munaasabadaasi isla markaasna xildhibaanadu sida ay sheegeen jirdilka loogu sameeyay walaalayaal saa ka warqabtaan caawa halkan waxa ka dhacay waa arrin sharci darro ah wuxuuna markay sharci darro tahay waxa mudan in si wanaagsan looga hadlo halkan aan caawa joogno waxaanu ku joognaa 6 xildhibaan oo hadda idin muuqda iyo xildhibaan imika aan nala joogin 7 xildhibaan baanu hayn muwaadiniinta reer Somaliland waxay xaq u leeyihiin sidoo dastuurku tilmaamay xuquuqda dhaqdhaqaaqa qodobka 22aad ee dastuurka hadaad akhrido isaga si waafiya u tilmaamaya caawa halkan ciidan hor leh oo ciidamada biliiska Somaliland ka tirsan ayaa noogu yimi xaflad عشا شرف oo dadku isku wareysanayeenna waxay si amni darro ah bay kula wareegeen waxay taasi ku tusaysaa xaqii uu muwaadinku lahaa in meel lagaga dhacay waxay ku tusaysaa kalsooni darrada iyo tabar darrada awood darrada iyo isku kalsooni la'aanta weyn ee dawladdii maanta soo waajahday muwaadiniin reer Somaliland oo meel isugu yimi wax dhibaato iyo fadqalala ay wadaana aanay jirin quruxdooda hablaha halka ka muuqday aad yaabayso in maalinka maanta ay dawladdii oo dhan isugu wada timaado ay xoog ku qabsato iyadu amni darrada sameynteeda ay kow ka noqoto horta waa wax inagu cusub ee horta reer Somaliland ha ogaadaan taa maanta cidda mas'uuliyad darrada iyo abaabulka iyo ilaahay kuma samadiida maxaa la yiraahdaa amni darrada weyn wadanka ka wada horta waa dawladdii laftirkeedii dawladda waxaan u dooranay inay amniga ka shaqeyso umaanu dooran inay amni darro iyadu ku kacdo dastuurkii meel baad kaga dhacdeen xildhibaanadiina meel baa kaga dhacdeen shacabkii reer Somaliland meel baa kaga dhacdeen arintaas aniga way isu qaban kar weyd shalay toole in kulmiye hablahoodii ay xaflad la yeeshaan si waafiya maantana xildhibaanada qaar markay la yeesheen shacbigoodii sida loo galo horta waa su'aalidu ku maqanay bal ka soo jawaaba reer Somaliland ha ogaadaan maanta waxa meesha ka dhacay waa fawdo hor leh oo barbilow inoo ah waa inaynu ka kacnaa fadhiga ka kacnaa iska diidnaa heeryadana iska qaadnaa dawladdanna maanta waa dumay way duntayee inaynu yur iska nidhaahnaaba waajib inagu ah aad iyo aad baa u mahadsantiin arrintan waxaana leenahay xukuumadda annagu waxaanu xildhibaano cusub sharciga iyo wixii naloo soo doortay iyo daacadnimadana ku dhaaranay kaga biqimayno caga jugleyn kuma joojinayno wixii naloo doortaan ku soconaa insha Allah hadii Ilaahay ka dhigan insha Allah haddaan in yar ku laabto qaybka wuxuu dhaceen galabta halkaas waa joognay niman xildhibaanaa baan ahayn 6 xildhibaan idin hor fadhiya iyo xildhibaanaga maqan 7 aanu hayn nin ka mid ah xildhibaanada oo xafladda maamuuska ay uga socotay halka ayuu ciidanka 3 gaari wata 10 sarkaalooteen soo galay ciidankii si fiican baan wada hadalay waxaan ku maxaa dhibaha jira sababtoo ah maadaama nahay xildhibaano qaran
waajib baa naga saaran shacabkayaga waajib baa naga saaran xukuumadda wixii jiraba inaan la ogaano waanu u nimi taliyaashii waa wada hadalay maxaa dhibay jira baan nidhi si fiican baan isu waraysanay waxaan nimay wax kale ma jiraan amar baan la soo siiyey waxaana lagu amray inaanu xafladda halkaa ka socota joojino yaa idin amraan weydiinay waxay noo sheegeen taliyaha ciidanka wasiirka arrimaha gudaha iyo bada saabka way noo sheegeen saraakiishu in uu soo diray amarka sareeya ee ayaga soo diray annagu waxaan u haysanaa inuu taliyaha ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland yahay inuu yahay baan u haysanaa waxaanu ogeyn inuu gurigiisa 8 askari ku wareejiyay habeenkii doorashada ilaa hadda malaa wali waa ugu wareejisan yahay debel gurigiina laga war doono iyaanu leenahay waayo taa markay joogto annagu maanta sharaf iyo karaamaanu qaranka ka mudannahay sharaf iyo karaama qaranku naga mudan yihiin maanta haddii shicibka iyo annagu aanu rabnay inaanu kala badbaadin laakiin nala garan waayeen wadanka dee madaxweynaha ka taliya golayaal baa ka taliya sharci baa ka jira kala dambeyn baa taala kala dambeynta insha Allah taala annaguna waanu ku celinaa golayaanu ka tirsanayn waanay hor iman doontaa sharcigaana la horgeeni doonaa waana la iska xisaabtami doonaa haddii aanu maanta ogolaano in annaga qori dabadiina lala dhaco dee maxaa laga doortay xildhibaanada shacabku maxay u taagnaayeen bacadka maxay kuyuuga u galayeen maxaa doorasho loo qabanayay miyaynu iska kala habaysanaynu nidhaaho waxday iska noocaas baynu nahay hadday saa ay ahaan weydo wixii halkay leedahay maanu marin doonaa casuumadda loo qabtay ma joogo intiina kuma jiro sidoo kalena quraan go'dhow soo qoray waxa uu sheegay isugu inaanu munaasabadaha iyo casuumadaha tigilba oo cid kasta ay hal ka ahaato munaasabadu qabanaysa cid loo qabanayo waayo mar haddii xildhibaankii badiyay annagu taa aad wari sheegaysay ma ogin xildhibaanku annagu waanu fadhinay waanu ka soo horeynay waxaanad ogtahay qofka xafladda loo qabanayaa dee in dadka marti sharafta ay xafladda u qabanayaa inay ka soo horeeyaan dadkii shicibka oo ka soo horeeyeen way fadhiyeen markii uu anagu uu nala soo hadlay fawdo eekaata waxaan u aragnay in ujeedo kale ba jirtaba waxaan u aragnay hablahan in wax yar oo fudud lagu dagaarin karo laakiin intaasoo gaari oo askari saaran tahay ujeedka ka dambeeya waxay noqotay inaan ku nidhaaho balna yirsugoha iman xaflad halkaan joogno asagu dabaduu joogay gaarigu ku jiray uu soo dagaayay nasug baan ku nidintaan soo degin markaanu aragnay fawdada socota wax kala baan u faahnay meesha ka socota